بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنتم حلو ونعكسن إلا يدين تبع حلو ونعكسن مالي ونعكسن حلو ونعكسن بعد عن فضل البرنامج كارا وقصة وصل ويرد الرئيسة يسوع قلت كذا يعرمها البرنامج كينا ما أنت كنتم تستعجلونه وقال هذا الرئيسة بدون كنتمي وحسوق لي سوقلات فربنا وكي مني ملك الدول عالم كها وحنتيجا وحبو بدن وحنتيجا اليمن سوريا يورك وحنتيجا إثيوبيا كها مرة الله يضو وحنتيجا سي وضع خصامي كالدول كلهم سوريا كيا يمن تو وضع كدقاري سوق اليان وحيا وضع كقطعنا ما وضع كيكتور السودان وشنو يكعليان وحوي كيف السودان ويا ككريستان ثقافة ككريستان سوبر ماركتات كيف السودان وضد وضع ككملة يمن تصيبا مقال وحكي سوق السحياة فربنا رستورانتها أو دهلا اسمها لما يمن توا ضد بشرة سوق دي لقالة يفرس السماء لأي نوع هو البعض سوريا كل الوالله متحرين وياي انتم كي بيان معان ان وحنتي ولا فايده بقى ولا كلام كاي كهذا لكن waxa soo dhaw xajira dad wxunti wadanka dhibaato boqolkiiba 200 ku hayo dadkaas wadanka Itoobiya kale ah magaalada way soo galaan waxay soo galaan qaab kala duwan oo tahriiba magaalooyinka waaweyn Soomaaliya way kala dhex mushaaxaan dadkaas wuxuu nooliyay siyaabo cajaayib dadkaas waa dad aan muslim ahayn boqolkiiba 90 muslim maaha waa kristan iyo yahuud weeye wada macatabka xiran dumarku wada leeyihiin dhibci kaniisada oo shamada ay ku qariyeen oo fiirsada ilaa halka shamada ku qariyeen rag siduu inoo sheegayo maxamed runtii gabadhani waad aragtaa ilaahay wejiga halka ay kaga xidhan tahay shalmadu bartay kaga xidhan tahay wejiga dhan way qarisay marka wejiga intan hore xaggan caanka iyo magaca calaamada kristanka ka taala biilaahi wadaadku mariya way duursadaan kabaha way duursadaan waxa ay sameeyaan in ay lacagta wadanka soo gashana ay dul bedeshaan wadankooda ay la tagaan 500 oo shilin wadanka wax soo geliyay dadka Itoobiyaanka ah magaalada ku sugan siiba qowmiyadda Axmaarada oo inaan hore warki jirin oo qowmiyadda Itoobiya gatmi inagu waxaan hore warki jirin qowmiyadda Ormada waxa badan tahay qowmiyadda shaqaysta magaalada Hargeysa nadaafadda oo dhan qowmiyadda Ormada haysta shaqooyin fara badan bay noo hayaan qowmiyadda Ormada laakiin qowmiyadda ugu fara badan leh ay markaan ugu soo qaxaysa wadanka waxba gelinay dhaqaalihi wadanka hoos u dhigaysa waa qowmiyadda Axmaarada waxay sameynayaan rag waa doorsanaya intadu waa doorsanaya markii waa doorsanaya kabi waa doorsanaya dadku waa doorsanaya wuxuu qaadanaya lacagtii uu bidiraya waxa dhacday xaafada way soo garaacaan badii wax soo garaacay xilliga rag guriga shaqo tago min 8 subaxnimo ilaa 12 subaxnimo inta u dhaxaysa ay og yihiin rag inay guriga ka baqayeen ay soo garaacaan iyo dumarkii carruurtii wiilka garaacaya si naxariistan haween bay gaar u garaacaya oo adiga tiilay gurigaaga si aan u garaacayo hadhow marka ka furto adagayso asagoo khamiis xun oo uskaga iyo culaamad uskaga khamiiska iyo culaamada uskaga dadkii ku gaar xawsanaya hadhow markuu meeshiisa tago iska bixinaya hadhow markuu soo shaqo tagayna uu xiranaya marka lama hore waa quxunti waa dad shaqo taga shida waxa soo jeedinaya meel si jooga inaan dadka shaqaysan dadkaas dadkoodii barwaaqaadi ka yimaadeen qoyga Itoobiya ka yimaadeen Itoobiya wuxuu leeyahay dad wax soo saarka dhulka iyo beeraha ku roob marka waxay ka soo doonayaan ummada iyagu loo soo saaraan qutu daruuri qudrada Itoobiya laga timaada bulshada reerkiisa waxaan soo jeedinayaa ayaan islaamku qaldin dadka Itoobiyaanka ee wadanka ay yihiin sidaa u shaqeeya waxa kale soo jeedinaya laamaha ammaanka sida immigration in dadka wax laga qabto la ogaado ay ka soo galayaan dad baa lacag ka qaata dad magaalada soo geliya dad baa soo lugaysiya hataa waxa jirta dad kale oo iyaguna lambarada ka kareeya oo u fiirsatay amxaarin ka soo galay 240 ku ka mid baa ka kareeyay boqolba maalintii soo dhacaya soddon muslimiin inta kale isaga qaadanaya dad kale waxa la shirkada Telesom iyo dawladda iyo banku hala socdaan dadka lambarada ka kareynaya lambarada ka kareynaya saadali
hore shirkadda Telesom way diiday dadka siiso caynkaas marka waa suuq madow lambarada saadka la dad baa ka kareeya qof kasta oo dadkaas qof baa saadka kareeya meel u fadhiya habeenkii buu tagaya uu siinaya markaa wixii soo dhacay boqolkiiba wax ka siinaya toban ka siinaya inta kale saa qaadanaya marka bulshada waxaan soo jeedinaya inaan dadka ku tagin dadka xasiin hadalkii maayirkiina ay raacaan ku gashilaad siisaa kun qof oo kale Itoobiya la haysakiin marka dadka Suuriyaanka iyo Yemen dalkeena kuma socdaan waxba kuma socdaan wadada Islaam oo wadada jidhkeena al-muslimu akhul muslim bali muslimku waa walaalo marka dadkaas waa jidhkeena iyo hilibkeena laakiin Itoobiya waa cadow dhalay wadakaaga ku socda wadakaaga gureynaya magaalada Hargeysa say dhex marayaan birta way qaadayaan caad way qaadayaan maryaha way qaadayaan bulshada waxa soo joojinaya dadka meesha ku aragtaan qofkii albaabka soo garaacaw iska celiyo dil oo ha ku tagin oo muslim hamooyin oo waxba ha jirin hadda cid wax siinayso Suuriyaanka si oo muslim kushi Mareykan ma soo barkiyay dadka waxa la siiyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh way aad baan mahadsantahay dadkani markaa su-aashaan ku weydiinaya waxaa weeye yaa ka dambeeya inay soo galaan waddanka oo yimaadaan dadka Itoobiyaanka ah ee sheegaysaa dadka waxaa ka dambeeya dad u sahana oo markii hore magaalada yimi dabadeetana warbixinta diray oo yidhi waxaan joognaa meel cajaayib oo lacagtu iska taabtaalo oo la iska kaasiinayo maryaha lagu siinayo boqolkii bir maanta waa 9,000 shilin haye laba qof ku dhex maraya 9,000 buu helayaa 9,000 boqol bir Itoobiya boqolka bir wuxuu ka yahay weyn ogdi marka way soo tilmaameen waxay soo tilmaameen meel maalintii 500 bir la shaqaysanayay 600 bir la shaqaysanayo Itoobiya shaqaalaha eeda ee shaqooyinka wanaagsan haya ayaa 500 bir laga yaabaa in dib maalintii uu shaqeeyo marka lagu dhufto in 500 bir noqoto marka wuxuu iska yimid meel maalintii 1,000 bir la shaqaysanayo marka dadkani waa dad hurda dadkaas ka dambeeya u yeedhaya guriga ka kireynaya lambarada ka kireynaya ka lambarka ka kireynaya guriga ka kireynaya ee gaadhay u soo qaadaya kaas ma wada ka keenaya dadkaasina ma wada kala xajecla kale hadii wada kala xajecla kale ka ma sameeyeen marka dadka waddanka soo gelaya waa dad Soomaaliya weeyaan waa dad Hargeysa oo Soomaaliya oo inaga oo xoogaa yar kharash ka eeganaya haddaan waddankuna aan la socon ciidanka gurgurasho baa la socon xaaladdu isbedeli karta waa dhici karta xeebeen ay ka tahdiyaan marka waa aragtay maamulka buldana kale maaha maamul deegaanihiisa wada xukuma Itoobiya ku inta ugu badan boosaaso ka tahriiba laakiin dhulka Soomaaliland xeebaha Soomaaliland iyagu way sugayn inay kama tahriibo hadday sidaa ku sii socoto waxaa arki doonaa xeebeen oo laga tahriibiyo ciidanka gurgurasho wax leen dadka la socda dadka Keenaya ganax culus la saaro dadka Kristanka isku gaa magaalada Keenaya la socda أيوة يا أبي 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 ما صمتي السلام عليكم.